nan gantaal ayay Iiraan bilowday inay hadeerta tuurto iyo sidoo kale gantaalo ay xambaarsan yihiin diyaaradaheeda nooca shahiidka loo yaqaano iyadoo la sheegayo in Iiraan sidoo kale ay bilowday hanaan isku dhafan oo duqeyma taliska ciidanka militariga ee Israa'iil afayeen u hadlay Efi Defrin ayaa ku tilmaamay in weerarkan uu yahay mid cusub aysan arag in dhaweeto isagoo ay tahay markii ugu horeysay Israa'iil ay qirato afayeenkeeda cusub ee ciidanka militariga Efi Defrin in ay tahay saacado tan ka duwan waxaanu galnay saacado ka duwan kuwii hore waxaana ina soo gaaraya hub isku dhafan iyo weeraro aan loo aabadayn oo cadowgeenu uu soo tirayo ma aha nabar ay naafilaynin laakiinse waxay u eg tahay in ay Iiraan ay la soo banbaxayso inay doonayso inay akhyaaraadka dhinaca militariga haysato wax ka bedesho toos daawashana qiimaha leh waa wararka ku soo dhawaada si toos ah aan idinku soo tabinayo iyadoo Iiraan iyo Israa'iil ay weerar iyo celis qaadayaan Iiraan waxay ku khasbanaatay sidii aan horay idinku hilaadiyay idinkuna sheegay inay weerarka horgeyso sababtoo ah marka aynu akhrinay dhammaanba istiraatiijiyadaha militari iyo khidadaha iyo khibradda aynu u leenahay wararka diblomaasiyadda inta waxay noo soo baxday sida kaliya Iiraan isku badbaadi karto inay tahay in weerar celiso waana arrimaha markaas muujinaya daawashana qiimaha leh mar walba in fahanka wararka lagu qotomiyo laguna dhiso in markaas warar soo tabiyo Iiraan ma aysan haysato wax akhyaara oo kale oo aan ahayn inay weerar noocan oo kala qaado Iiraan hadeerta waxay bilowday sida iska muuqata gantaalo nooca Brasiska loo yaqaano oo ah kuwa aad u ballaaran inkasta oo uu sheegayso xataa militariga Israa'iil ay qirteen dhankooda inay qaadeen weeraro wax ku ool ah oo ay noqonayso ay yiraahdeen weeraradani kuwii ugu waaweynaa ee ay wajahaan haddana waxay isku dayayaan Israa'iiliyiintu in ay ka hortagaan weerarkan afayeenka ciidanka Israa'iil oo hadlay hadeerta wuxuu qiray inay tahay marxaladii ugu adkeyd ee dhinaca weerarada isku dhafan waxa laga wadaa gantaalo ballistic missiles diyaarado drones oo suicide iyo kuwa hagan oo isku jira inay Iiraan hal mar sii deysay boqol ayagoo u wada socdo ayay Iiraan gantay boqolkii u horeeyayna waxa la sheegayaa in qaybo badan oo Israa'iil ay soo gaadhay sidoo kale 200 oo diyaaradood oo Israa'iil ay leedahay ayaa kacay Israa'iil ayaana markii ugu horeysay ku dhawaaqday in ay hawlgelisay 200 oo kamid ah diyaaradaheeda isugu jira F-16 F-31 and F-35 andaho sidoo kale F-22 F-16 diyaaradaheeda dhinaca kale MQ-ga loo yaqaan Mareykanku sameeyay droneska iyo 10 nooc oo diyaaradaha kale ee kala duwan iyo kuwa loo yaqaan helicopter attack 100 aag oo ciidan ayaanu duqeyd doona ayuu sheegay afayeenka Efi Defrin isagoo dhinaca kalena sheegay in ay doonayaan inay burburiyaan ilaa iyo 330 goobood oo ah goobaha lagu kaydiyo hubka waxaana tuurayna ay yiraahdeen ilaa iyo 330 bam oo mid walba uu ku qoran yahay magaca goobta waa sida hadeerta Israa'iil ay hadalka u dhigasay dawladda Mareykanka ayaa dhinaca kale waxay ku baaqday in ay dadka Mareykanka ee jooga bariga dhexe oo dhan ay guntiga dhiisha ka xidhaan qofka muwaadinka ee bariga dhexe jooga ee Mareykanka hadeerto waxba looma qaban karo sida daraadeedna waa in uu heegan galaa qofkii hadeerto xamaamadiisa urursan kara ee ka soo bixi kara waa inuu ka soo baxa warkaas hadeerto waxa ku dhawaaqday waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka sidoo kale safaaradaha dalka Mareykanka oo dhan ayaa loo diray report degdeg waxaana la sheegay inay isku xidhaan oo coordinate gareeyaan iyaga dhexdooda inay isku xidhmaan inta kalena ay sameeyaan wixii kraankooda oo dhan oo ay dadka ururi karaan waxa lagu tilmaamay in arrintan ay tahay khatartii ugu weyneed ee dagaal Israa'iil markii ugu horeysay hadal salba baqre ay sheegtay waxaana ku tiraabtay in weerarku uu yahay mid sii xumaanaya dhinaca kale waxa la sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu go'aamiyay in la soo saaro dhammaan dadka shaqaalaha ah ee Mareykanka marka laga reebo dad fara ku tirisa oo safarada u joogi doona in ay sheeta kala socdaan dhaqdhaqaaqyada kale dawladda Mareykanku waxa ay isha ku haysaa waxa dhacaya Iiraan waxa ay dadkeeda u sheegtay inay isdajiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waddanka Iiraan war qoraal ay soo saartay waxay uga digtay dadka waddanka inay salba baqaan waddankan idinka leh isla markaana waxaa joogay ciidamo idinku hareeraysan kuwaasoo dhiiggiina ku difaaci doona dhiigooda ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ugu yeedhay shacabku in ay dawladda isgarab taagaan sida daraadeedna ay warbaahinta kala socdaan wixii xog warbaahinta waddanka oo dhan waxa loo jeeyay in xaalad dagaal la geliyo waxa loogu yeedhay warbaahinta mucaaradka iyo muxaafidka inay u diyaar garoobaan Iiraan jiritaankeeda in la difaaco warka qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha dhiig gudayo waxay sidoo kale u sheegtay dadkeeda in la joogo saacado kala
kala goodona ama kala go'aami doona oo dhinacun u ridi doona in 4,000 oo sannadood oo Iiraan ay jirtay ay sii jiri doonto iyo in ay noqon doonto mid sida ay rabaan saanooniyadu ay ka yeeri doonto waxay ka digeen in ay tani tahay barbarow tijaabo imtixaanaad kala marayo hogaamiyaha waddanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ugu yeeray dadkiisa in ay adkaystaan wuxuu kaloo sheegay in ay amaraan waxyaalaha muhiimadda ah Iiraan waxay sheegtay in 3 sarkaal oo ciidankeeda ay lumisay Israa'iil waxay qiratay in 3 sarkaal iyadu ay gabawartay waxaana ku tilmaantay in 3 sarkaal ay ahaayeen rag muhiim ah laakiin Iiraan waxay leedahay uma jaxanjaxayno isla markaana looma dhitinayo waxaana ku baaqday in boqolaal sarkaal oo kale oo ciidan oo isugu jira jaramo korneylo iyo kuwa kale oo dhaarsan ay waddankan u joogaan inay dhiigooda ku difaacaan oo horaan hogaamiyaha Iiraan sidoo kale waxa uu sheegay in ay ciqaabtu ay tahay barbilow wuxuuna sheegay in ay tahay bilow hadeerta uu bilowday qaar ka mid ah xubnaha ayaa waxay sheegayaan in haba yaraatee xarunta Natas ee ay Israa'iil ku dhawaaqday inay burburisay ama ay ka taqalustay aysan ka jirin wax burbura oo hulaaq oo aad u weyn qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda IAEA ee la aaminsan yahay inay dagaalka qaybta ka tahay ayaa sheegay inuusan hulaaq dhinaca radiationka uusan ka imaanin xarunta xataa goobaha ay kantaalo ku dhaceen ma uusan dhicin ayaa la yiri wax radioactive ah ama wax explosion ah oo keeni kara qaraxyo yacni muujinaya in uranium fara badan meesha yaalay taasoo durba cadeyn u noqotay in degdegta Israa'iil ay noqotay warbeer dhinaca kalena ururka Xisbullah ayaa waxa uu sheegay in ay dagaalka goorta ay doonaan iyaguna bilaabayaan ururka Xisbullah ayaa waxay ka digeen in ay u muuqato inay Israa'iil isku dayday in ay samayso wixii ay ku samaysay ayaga sanad ka hor laakiinse Iiraan ay gabaanba ay ka feejignaatay Iiraan waxay ku guuleysatay si wararku ay sheegayaan in aan laga dilin 30 sarkaal oo ay qoondaysay hay'adda Mossad inay gaboorto Mossad waxay doonaysay inay 30 sarkaal iyo 15 saynis yahan ay ku disho howlgalkii 4 saac ugu dhameeyay Afrika soo socda ay wadi doonto oo ay ugu tala gashay in ay gabaanba ay hanta xarubla kaga dhigto waddanka Iiraan oo dhan marka waddanka oo dhan isku dhex daato Israa'iisha iyo taliska uu lumo kadibna in ay noqoto in ay galaan waddanka oo haddana ay burburinta ay sii wadaan laakiin waxa la sheegay 3 sarkaal in ilaa hadeerto la amsay inay dileen aynu eegno dhinaca kale dawladda Israa'iil waxay sheegaysaa in ciidankeeda ay gelisay heegan 169,170 oo askari oo heegana oo badankoodu qaso ku sugan iyo 610 loo yaqaan ciidanka kaydka Israa'iil ayaa loo yeeray hadaba Iiraan iyadu waxay haysataa 465 oo ciidan oo heegana iyo 350 ciidan ah oo markaasi ah kayd waxayna dhinaca kale ku dhawaaqday inay gelisay howlgalkii ugu weyn uguna sareeyay Iiraan dhinaca kale waxa ay leedahay ciidan bad ah oo tirabeela waxa la aaminsan labada dal inay ku kala faanaan horeeyaan dhinaca teknoolajiyada Israa'iil waxay ku horeysaa dhinaca teknoolajiyada gaar ahaan difaaca iyo diyaaradaha sidoo kale kantaalaha gaar ahaan nooca precisiska ama nooca tumaatinta iyo in ay meesha loogu yeero maadaama GPS ay ku xiran yahay maadaama imkaaniyaadkan iyo imkaaniyaadka waddanka ugu casrisan caalamka uu sameeyo laakiinse Israa'iil waxa laga gacan sareeyaa tirada kantaalaha ballistic missileska kantaalaha ballistic missileska way ka duwan yihiin kantaalaha cruise missileska sababtoo ah kantaalka cruise missileska waa kantaal inta badan liishaama kuna dhaca goobta loogu talagalay laakiin kantaalka loo yaqaano ama la dhaho ballistic missiles waa kantaal inta badan maran habaaba isla markaa waa unguided missiles wax loo yaqaano Iiraan laakiinse waxay haysataa wax la aaminsan inay ku dhow yihiin ilaa 500 oo kun oo noocyadaas waxaana laga baqayaa in ay sida roobka u isticmaasho daqiiqad kasta kuwaas oo iyaga oo xataa lumi kara ay magaalooyin kale iyo dalal kale ay ku dhici karaan xaaladda bariga dhexe waa khatar waa halis adduunka oo dhan wuxuu qarka u saaran yahay in saxariir weyn uu muto shidaalka ayaa durbo cirka isku shareeray la soco wararka oo calaamada